السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتو عنا ونكسن صاحبي على ملولبو جوجتان برتينا حط حقيقة أيادينا جلس صوتنا كل سود وهذا وركي وجودن بي سوماليا عالم كقضاء بدر عيسى بدن قاني دين كوس وبهين دون نوحة كم النقولية مدحونا جمهورية الفدرال الصومالية ودنا محمد عبد الله فرماجو شري دقدقة سويري بدأ على مامل قولة دي قبل بنادر دولة كينيا waxay mar kale codsatay in wada hadal lagu dhameeyo arrimaha Soomaaliya ee muranka badda Soomaaliya sidoo kale waxaad ku daawan doontaan wararkii ugu dambeeyay maamulka Puntland oo sheegay in jawaab cad ay ka bixin doonaan hadalkii ka soo yeeray madaxtooyada filaha Soomaaliya sidoo kale waxaan idin soo baahin doonaa Mareykanka waxa uu war ka soo saaray muranka siyaasadeed ee ka taagan arrimaha Soomaaliya qodobadaas iyo qodobo kale oo xiiso badan ayaad ku daawan doontaan mar kale ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo mudxuleedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa markii afraad isugu yeeray madaxda dowlad goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir shirkan oo dhacaya 22 bishan ayaa waxa uu yahay mid lagu dhameystirayo dadaalkii iyo sidoo kale wadaxaajoodkii arrimaha doorashooyinka ee dhexmaray dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir shirkan oo 2 maalmood soconaya ayaa waxa lagu goleeyahay in lagu soo gabagabeeyo talooyinka guddiga farsamada doorashada ee ka soo baxay shirkii Baydhabo 15 ilaa 16 bishii Febraayo 2020 kaas oo xal looga gaaray tabashooyinkii ka soo laabtay heshiiskii doorashooyinka ee 17 Sebtembar ee 2020 madaxweyne Farmaajo ayaa ku booriyay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka inay ahmiyad weyn ay siiyaan shirkan lagu dhameystirayo tabashooyinkii ka soo laabtay heshiiskii doorashooyinka si dalka loogu jiheeyo doorasho xor iyo xalaal ah magaalada Muqdisho gaar ahaan teendhada Afisyooni waxa lagu ballansanaa inuu ka dhaco shir u dhaxeeya madaxda dawladda iyo kuwa maamulada waxaana shirkaasi oo beesha caalamka ay qaban qaabisay oo u muuqda mid beesha ay ka baxday kadib markii xalay uu madaxweyne Farmaajo cilaamiyay madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland Axmed Madoobe iyo Siciid Dani ayaa horay dhowr shuruudood ku xiray ka qaybgalka shir uu ku baaqay Farmaajo tan iyo markii 8 bishii Febraayo uu dhamaaday mudxuleedka rasmiga ah ee madaxweynaha Soomaaliya wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dabacad ayaa sheegay in Puntland ay jawaab rasmi ah ka bixi doonto qoraal xalay saqdi dhexe ka soo baxay Villa Soomaaliya oo ku aadan doorashooyinka waxa uu sheegay in Puntland ay bixi doonto jawaab ku haboon waxaana sida wararku ay sheegayaan ay u badan tahay in ay didi doonaan dhanka kale dowlad goboleedka Jubbaland ayaa laga sugayaa inay go'aan ka soo saaraan qoraalkan ka soo baxay Villa Soomaaliya madaxweynaha mudxuleedkiisu u dhamaaday ee Farmaajo ayaa shir isugu yeeray madaxda dawladda xubnaha ka dowladda federaalka Soomaaliya iyo gobolka Banaadir shirkan oo 2 maalmood soconaya waxa lagu goleeyahay in lagu soo gabagabeeyo talooyinkii guddigii farsamada doorashada ee ka soo baxay shirkii Baydhabo 15 ilaa 16 bishii Febraayo 2020 kaas oo xal looga gaaray tabashooyinkii ka soo laabtay heshiiskii doorashooyinka 17 bishii Sebtembar 2020 xogayaha arrimaha dibadda dalka Mareykanka ayaa ugu baaqay madaxda Soomaalida in ay dhinac isaga dhigaan ujeedooyinkooda siyaasadeed isla markaana ay qabtaan doorasho hufan oo xalaal ah loona dhan yahay warsaxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda dalka Mareykanka ayaa waxa lagu sheegay in Mareykanku uu aad ugu walacsan yahay jahwareerka siyaasadeed ee xilligan ka jira Soomaaliya taas oo ay muhiim tahay in xal buuxa laga gaaro xogayaha arrimaha dibadda dalka Mareykanka ayaa madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada waxa uu ka dalbaday in dhinac iska dhigaan hadafkooda siyaasadeed ee kooban ayna si degdeg ah heshiis u gaaraan lana qabto doorasho loo dhan yahay sidoo kale xogayaha ayaa tilmaamay in khilaafka taagan uu dib u dhigi karo horumaradii laga gaaray deen cafinta Soomaaliya la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada iyo arrimo kale oo muhiim ah kuwaas oo ah horumar in laga gaaray beesha caalamka ayaa wada dadaalo kala duwan oo lagu doonayo in madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ay heshiis ugu gaaraan caqabadaha hortaagan qabsoomida doorashooyinka la filayo in ay ka dhacaan Soomaaliya ugu dambeyntii dowladda Kenya ayaa mar kale ku baaqday wada hadal ku saabsan dacwadda badda
Kenya waxay hadda ay doonaysaa in kiiska muranka xuduud badeedka ee kala dhaxeeya Soomaaliya laga saaro maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ICJ laguna xaliyo wadahadal laba geesooda. Tani waxay imaanaysaa maalmo kadib markii Kenya ay go'aansatay inaysan ka qaybgelin dacwadda xadaynta badda ee maxkamadda hortaala. hadal qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa waxa ay ku adkaysatay in Soomaaliya ay tahay in marka hore ay caadi ka dhigto xiriirka ay la leedahay Kenya dibna loo soo celiyo xiriirka diblomaasiyadeed. Kenya waxay gaadhay go'aan ah inaysan ka qaybgelin dhageysiga dacwadda waxayna ku adkaysanaysaa in khilaafkan laga soo saaro maxkamadda laguna xaliyo wadahadal laba geesood ah ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay Kenya. dhageysiga dacwadda badda ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya ayaa lagu soo gabagabeeyay xarunta maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ee magaalada Hague dalka Holland. dhageysigan oo bilowday 15 bishii Maaj waxa Soomaaliya ku matalayay ergo uu warkacay ra'iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Maxamed Guuleed iyo qareeno ajnabi ah. Kenya waxa ay ka maqan tahay dhageysigan mana jeedin dacwadeeda afka inkastoo oo ay hore u soo gudbisay iyadoo qoraal ah. badda la isku hayo baaxadeedu waa ku dhawaad 100,000 oo kiiloomitir oo isku weera. dacwadan waxa ay bilaabatay 2014 waxaana ay soo martay marxalado kala duwan. waxaa la filayaa in go'aanka maxkamaddu uu qaato dhowr bilood sida uu sheegayo Yuusuf Garaad Axmed oo ka mid ahaa wafdigii dowladda Soomaaliya ee ku sugan magaalada Hague.